Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan. Waa maalinimo Sabti ah bisha December 11 sanada 2021. Qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya oo warbixin soo saartay. Mudaharaadyo iska soo horjeeda oo lagu kala taageerayo dowladda dalka Itoobiya iyo weliba jabhadaha isbahaysiga samaystay ee TPLF-ta iyo OLA oo ka socda wadanka Mareykanka. Jabhadda Oromada ee OLA oo soo bandhigtay qorshahooda xiga kadib dharbaaxooyin kala duwan oo kasoo gaadhay ciidamada dowladda dalka Itoobiya oo magaalooyin badan ka saaray maalmihii lasoo dhaafay. Ciidamada federaalka dalka Itoobiya oo weli dul fadhiya magaalada Woldaya iyo ciidamada TPLF-ta oo la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada gudaheeda. Dhanka Soomaaliyana waxaan ku eegi doonaa xiisadii ka taagneyd magaalada Boosaaso iyo halka ay marayaan wadahadaladii lagu dhexdhexaadinayay ciidamada BSF-ta iyo maamulka Puntland. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Aan ku bilownay safaaradda uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Addis Ababa ayaa soo saartay warbixin dheer taasoo lagu cambaareynayay guud ahaanba dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya. Safaaradda dalka Mareykanka ayaa sheegtay in dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Itoobiya ay tacadiyo ba'an ka geysteen dalkaasi guud ahaantoodaba. Warbixinta ay soo saartay safaaradda Mareykanka ayaa loogu horreysiiyay kooxda TPLF-ta oo la sheegay inay ka geysatay tacadiyo kala duwan meelihii ay ka qabsadeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Warbixinta ay soo saartay safaaradda Mareykanku oo daba socotay warbixin ay horey u soo saartay Hay'adda Xuquuqda Aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in tacadiyo baahsan ay ka dhaceen dalka Itoobiya, gaar ahaan meelaha lagu dagaalamayay ee waqooyiga dalkaasi. Waxay safaaraddu sheegtay in guud ahaanba dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Itoobiya ay tacadiyo kala duwan geysteen. Waa TPLF-ta, ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo weliba ciidamada Eritrea oo la sheegay markii ay Itoobiya soo galeen inay geysteen tacadiyo aad u ba'an. Warbixinta ay soo saartay safaaradda Mareykanku oo lagu xusay saddexdaas qaybood ayaa la sheegay in saddexdooduba ay kala daran yihiin isla markaana aanay islaamin oo tacadiyo ba'an ay ka geysteen goobihii ay la kala wareegeen. Hay'adda Xuquuqda Aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa shalay soo saartay warbixin dheer oo ay ku sheegaysay in 2 magaalo oo ku yaala gobolka Axmarada ay tacadiyo ba'an iyo weliba dilal baahsan ka geysteen kooxda TPLF-ta oo horey u haysatay. Waxayna dowladda Mareykanku sheegtay in tacadiyada baahsan ee ka dhacay dalkaasi ay yihiin kuwo aan la qiyaasi karin oo dhinacyada dagaalamaya guud ahaantoodaba ay geysteen. Warbixinta ay soo saartay safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ayaa loogu horreysiiyay kooxda TPLF-ta, taasi oo u muuqata in kooxdaasi ay tacadiyada ugu ba'an ka geysatay gobollada lagu dagaalamayo, iyadoo dowladda federaalka Itoobiyana lagu xigsiiyay oo la sheegay in iyadana ay tacadiyo ba'an ka geysatay meelaha la isku haystay iyo weliba magaalooyinka ay iskaga dambeeyeen. Qowmiyadaha colaadda soo jireenka ay ka dhaxayso ee Tigrayga iyo Axmaarada ayaa sanadkan dagaalo ba'ani ay ku dhex mareen gobollada Axmaarada iyo Tigrayga, iyadoo maamulka Axmaarada laga qabsaday magaalooyin tiro badan oo ciidamada TPLF-tu ay la wareegeen. Waxaana halkaasi la filayay in ay ka dhici doono xasuuq iyo weliba in dadka Axmaarada ee ku dhaqan magaalooyinka ay TPLF-tu la wareegtay ay ku sameyn doonaan tacadiyo kala duwan. Dhanka kale, mudaharaadyo waaweyn oo iska soo horjeeda ayaa lagu qabtay magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Mudaharaadyadaan oo ay qabanayeen kooxo iska soo horjeeda oo kala taageersan dowladda dalka Itoobiya iyo kooxaha TPLF-ta iyo Oromada ayaa la sheegay inay ka dhaceen magaalada caasimadda u ah dalka Mareykanka ee Washington. Qaar ka mid ah qowmiyadaha Tigrayga iyo weliba Oromada oo halkaasi ku taageerayay kooxaha TPLF-ta iyo OLA ayaa la sheegay inay mudaharaadkaasi marka hore qabanayeen isla markaana ay halkaasi isugu imaadeen, balse kooxo taageersan dowladda dalka Itoobiya oo iyagana mudaharaadyo horey ugu soo qabsaday meelahaasi ayaa la sheegay inay soo abaabuleen isla markaana ay meeshaasi isugu imaadeen, iyadoo halkaasi ay ka jirtay buuq iyo weliba saawaxan fara badan. Ayaa la sheegay in ciidamada dalka Mareykanku ay kala dhex galeen, iyadoo loo sheegay in koox walba ay si nabad ah u muujiso dareenkeeda isla markaana cidda ay taageerayso ay ku soo bandhigto.
Mudaharaadyaddan waaweyn ee ka socda dalka Mareykanka ayaa soo bilaabmay tan iyo markii uu dagaalka dalkaasi xoogaystay, waxaana halkaasi mudaharaadyo waaweyn ku qaban jiray kooxaha dowladda taageersan oo ka cabanaya dalka Mareykanku inuu gacan siinayo kooxaha TPLF-ta iyo Oromada. Waa mar ay dowladda dalka Itoobiya ku sigatay inay meesha ka baxdo ayay kooxahaasi isu soo abaabuleen, isla markaana halkaasi ay mudaharaadyo waaweyn ku qabteen dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska. Balse haatan ayaa u muuqato in dhankooda iyagana ay isu soo abaabuleen kooxaha TPLF-ta iyo Oromada oo iyaguna mudaharaadyo xooggan halkaasi ku qabanaya maalmahan. Waxay mudaharaadyo waaweyn horey uga dhigeen kooxaha taageera TPLF-ta iyo Oromada magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyagoo haatanna maraya magaalada Washington oo iyadana halkaasi ay isugu yimaadeen shalay. Balse kooxaha dowladda taageera ayaa weli iyagana sii wada mudaharaadyadii ay ku taageerayeen dowladda, isla markaana ay kaga soo horjeedeen waxa ay ku tilmaameen faragelinta reer galbeedka uu ku wada dalka Itoobiya. Dhinaca kale, jabhadda Oromada ee dagaalka kula jirta dowladda dalka Itoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo OLA ayaa soo saartay warbixin dheer oo ay kaga waramayaan dagaaladii dhacay iyo weliba meelaha ay haatan ku sugan yihiin iyo waxyaabaha u qorshaysan ay doonayaan inay qaadaan wixii hadda ka dambeeya. Jabhadda Oromada ee OLA oo baryahanba la kulmaysay dharbaaxooyin waaweyn oo kaga imanaya dhanka dowladda federaalka Itoobiya, iyagoo horey looga saaray magaalooyin waaweyn oo ay horey ugu sugnaayeen sida Kombolja iyo Dase, ayaa haatan sheegay inay qorsheynayaan in ay istaraatiijiyado cusub la iman doonaan, isla markaana aanay OLA meesha ka bixin oo ay nooshahay weli ayna dagaalamayso. Jabhadda Oromada ayaa sheegtay in miidiyaha haatan ku yaala dalka Itoobiya uuna sheegaynin waxyaabaha dalkaasi ka socda, isla markaana iyagu ay magaalooyin cusub qabsadeen, ayna welina wadaan dagaal xooggan oo ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, balse aanay jirin cid ka waramaysa meelaha ay qabsanayaan, iyadoo miidiyihii ku yaalay dalka Itoobiya ay aamusisay dowladda dalkaasi. OLA waxay sheegtay in dadka Oromadu ay aaminaan jabhadooda, isla markaana jabhadda Oromadu ay weli sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo weliba maamulka Abiy Ahmed. Dhanka kale, haddii aan eegno dagaaladii ka socday waqooyiga dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Axmarada, ayaa weli halkoodii kasii socda, iyadoo magaalada Woldaya ay ku wajahnayeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya oo horey magaaladaasi ugu dul sugnaa. Waxaana wararka halkaasi ka imanaya ay sheegayaan in ciidamada TPLF-tu ay weli ku sugan yihiin gudaha magaalada Woldaya, ciidamada dowladda federaalka Itoobiyana ay magaalada hareereeyeen, iyagoo sugaya in kooxda TPLF-tu ay si nabad ah uga baxdo magaalada Woldaya. Haatan aan aadno wararka nooga imanaya magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland oo xiisad ba'ani halkaasi ay ka dhex taagnayd ciidamada BSF-ta iyo maamulka Puntland. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in wadahadallo ay halkaasi uga soconayaan xubno ka tirsan dowladda Puntland iyo agaasinkii hore ee hay'adda BSF-ta. Ilawareedyo wargal ah ayaa tibaaxaya in wadaxaajoodyadu ay meel fiican marayaan, isla markaana la isku soo dhowaanayo. Dhulka hadda xarunta u ah hay'adda waxaa iska leh qoyska agaasinkii hore. Sidoo kale waxaa la sheegayaa inay u badan tahay in loo ogolaan doono qayb ka mid ah hubka iyo gaadiidka hay'adda. Wakiilada dowladda Puntland ku matalaya wadahadallada waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Xasan Shire Cabdi iyo wasiirka warfaafinta, siyaasiyiin iyo ganacsato magaalada ah, ayuu yidhi qof la socda kulanka. Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ayaa bishii hore xilka qaadis ku sameeyay agaasimihii hore ee hay'adda BSF-ta, waxaana arrintaasi ay sababtay in ciidamada dowladda lagu soo daadgureeyo xarunta ganacsiga Puntland. BSF oo dowladda Mareykanka ay si weyn u taageerto ayaa muddo dheer ahayd hay'adda agaasimayaasheeda ugu badan ay ka soo jeedaan hal qoys oo si gaar ah u maamulayay hay'addaasi. Akhyaarta sharafta leh, nagala socoto intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaanba wararkii naga soo gaadhayay Geeska Afrika. Intaan ku kulmayna warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.